kulanti wacan wanaagsan dhammaan daawadayaasha hawada nagala socdo habeenkan caawa waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aad u xiiso badan oo idinka hayno fanaanada caanka ah barbarkay fadhida aad wada garanaysaan magaceeda iyo muuqeedaba Yurub Maxamed Cabdi Geeyo waxay fanka ka bilowday magaalada Hargeysa 2006 isla iyadoo ku dhalatay 1987 isla magaalada Hargeysa Yurub Maxamed Cabdi waxay fanka ku soo bilowday iyadoo 19 jira waxay ka bilowday magaalada Hargeysa heesiheedii ugu horeeyay bartan ay ka bilaabmeen Yurub kadib waxay uga gudubtay kooxda ay ka bilowday shaqadeedii koowaad kooxda qaranka Booliiska Jamhuuriyadda Somaliland waxay uga gudubtay kooxda New Band ka dhisan dowlad deegaanka Itoobiya Jigjiga waxay ku soo guri noqotay Hargeysa waxay aasaaseen kooxda xidigaha geeska intiina badan aad ku barateen Yurub waxay noqotay hablaha sanadadii dambe kuwooda ugu heesaha badan leh ama heesahooda aad dadku jeclaystaan Yurub habeenka caawa hortiina fadhida su'aalo badan iyo meelo badan iyo sababo badan oo dhagihiina iyo calooshiinaba ka guuxaya caawa waxaan diyaar u nahay inaan Yurub idin weydiino oo idinka jawaabto sidoo kale waxaan ka maqnayn heeso cusub oo habeenka caawa Yurub idin soo bandhigi doonto oo koow ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn afar ahayn shan ahayn bal marka hore aan idin kala baxo Yurub Maxamed Cabdi Geeyo Yurub ka soo dhaw barnaamijka Yurub waxaan fadhinaa hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa caawa nasiib waxaan u yeeshay inaan kaliga صح aad soo fadhiisataan waraysi صح in ka qabanno in dadweynaha inagu gudbinayna صح in badan aniga oo markaan mataliya daawadayaasha iyo dadka taageerayaasha hawada ka daawanaya nimba su'aal is weydiiya caawa su'aalo badan baan ku weydiin doonaa adiguna si kale laaba inaad nooga jawaabto laakiin heeska fariisinkeena barnaamijkeena ku iba furi doono maxaad inoogu bilaabi hortay intaan su'aal kale ku weydiin هذا هسه noogu furay barnaamijkeena waxa le فنان markii hore dadku fanaan u yaqaaneen abwaan u gudbay Cabdiraxmaan Caydiid Cabdi oday ha oday markuu la baxay soo socotay abwaannimadu soo socotay markii hore wadawayaasha abwaannimo marmii yaqaaneen heestaas noogu furay barnaamijka walaalo heeska magaceed heesta waxa la yiraahdaa Maaradiidi adna Maaradiidi isfaham weyn waa hees yani laba qof oo isjecel hadana waxay ka hadlaysaa yani isfaham waa jira marka waxay leeyahay hawshan dhexdeena talada yaa ka mayro xiskeena absolutely waa hees weyn abwaanka weyn ka hadlay Maxamed Cumar Cabdi oo aad u salaamayo isagii ciyaarkiisa iyo xaaskiisa dhamaan eriyadana waa odaysaan ku sheegay muusiguna Mawlid Xasan Faarax way seerkaad iyo ban falan u salaaminaa fadaawadayaal ku soo dhawaada heeskaasi aynu ku furayno barnaamijkeena caawa adna Maaradiidi iyo codkii baxsanaa Yurub Maxamed Cabdi Geeniyo Tell me
dhexdeena ya kamayda xiskeena ya kamayda xiskeena ya kamayda xiskeena ya kamayda xiskeena موسي ويداي كوم حبه هيسي أنا كوم قويدي مرتكو علوصي ما موسي ويداي مكركا نوقوهاي مدكا مغناضي مالمكات كيستي مرلبادي دونتي ومعدونة هذي اسمك كديدي مكر كانوا قوهي ودكا مغناضي مالمكات كيستي مرلبادي دونتي ومعدونة هذي اسمك كديدي يا كمير حسكينا يا كمير حسكينا يا كمير حسكينا تلامير دقوينا يسمان داف كدحدينا يا كمير حسكينا 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 waayahay daawadayaal ismaandhaafka dhexdeena yaa ka meedha dhexdeena samaha yaa ka meedha xiskeena cabdiraxmaan caydiid odayaad baan u salaaminaa wuxuu dadweynaha dhexdhigay hees weyn oo Yurub ku soo wakiishay laba walba waxaynu leenahay iyagu bade hawluhu iyo waxyaalo isku haystay farbadayeen ilaahay baa ka meedhi karan leenahay حلنا هلا رادي هذه يربي كل والله وشيغا waxaad kamid tahay hablaha Soomaaliyeed kuwooda ugu codka macaan leh ma sha Allah markii koobaad inta kala qof baa kooranaya ma xasuusata qofkii koobaad kugu yiri yirba wad fiicantay aad iyo aad hado islaantay dhashabeed hooyaday anaad jecelahay ma sha Allah salaameyadana hooyo Leila ilaahay cimriga caafimaadka baa dheereeyo markaas maxay ku soo weysatay markaas maxaa sababay ma gurigaadkaysi jirtay markaad shaqeynayso markaan yaraa iska teenage-kaan shaqeynayo heesaa ku shaqeynaysidii meelaha markaan heesiisayo qofkii ugu horreeyay igu tiri fanaanad noqon kartaa maxay ku qiimaysaa heesaha beriga ay maamadu dhageysatay dhagteeda ku soo dhacay soo jiitay qiimeynta ku dhufatay waxa kamid ah ayadana aad taageeri jirtay aniguna aad jeclaa isku dooqba dhinaca ka noqotay dhinaca aad iyo hees iyo laba bileesa khadad daahir kulay dad badan oo jecel baa jira adigu inuu iswareysan waxay sheegtay heesaad macal barobada ka mirtay khadrad daahir ahaayeen mid yar oo bila musiga balcodkaagan iyo dadkuna hay nala maqlaan wixii hooyleeli maqashay sax maxay oran lahayd igu beer jacay ishqiyasak kalgacayl ku baayo hadallada baroorti boogaha damqaynaya maygu baabay maqalay yurwayna dhig wadna sidatay yurwa balheeskii koobaad waxaan xasuustaa hees koobaad oo ma telefishinka qaranka laga sii deyn jiray bari heeskaas magaceedii iyo balcidii samaysay bal nooga sheekay waxay ahayd jacayl rasmiyan sida rocbo waxaan wadaa adaan kula raadiyaa haye ereyada waxaa lahaa oday abtiyan isagana aad salaamayo waxaa la yiraahdaa
الحمد لله دون سلامنا لحنك وحالها نحرسنا الله كورابي عتفتح 10 دقيقة موسيقى وحالها سعيد قش heeskaas wixii la koosatay barigaas telefishinada cusbaayeen oo dadku wada xiiseynayeen oo adigoo cusub oo hees kale cable ku ka qabtay ba jirto barigaas social media horta yarbay mu jirin aadiyad heeska markaad qaaday subaxnimadkii waagu bariyada kale dadku daawadeen sanqariyo wax soo rogaal celiniyo ama wax lagu yaqaan afka qalaad la yiraahdo feedback ma aragtay heeska xalay u saasoo ahaa ma lagu yiri والله وقت جاينا ما هذا ورتين فيدباك هذا بين لك ويسني مو يعني وقت قال لما أقول ده هذا أكسب بدتكو هاي ما كشوش المريا هذا كوالي سو معها لبدا صوتك بعد حقيقي كشي إثيوبيا قبتي ولا لا أو كوحدة بوليس كي إثيوبيا كهري كوحدة بوليس كهريسي وما كنت عارف رسمي عن قاضي بوليس كان كشري بوليس كنت كشرتي كوحدة بوليس كان ها يا أذان قوري أيان هسرنا ما كان قاضي كيبر قاعد يدرس إسماعيل عديه كقبتي أوكي مركز شقدي وجوهريسي وكوحدة بوليس كهريسي لا بلوضة كوحدة بوليس كان يلا بدأ هي صوت بقى مركز دمتشي تجوريكت بالشيء حالة دي بركي فانك سيد قوسي أم بقاطع أو ده قفلة بها يصدر كيسوق سقاطي كوحدة بوليس كم ذا تجيات كل تي سيدا وهوشي وطي والله هذا تشجيعات أنت يمهم دي أنا تيجي ولا مركز روحي هاي أحمد إبراهيم محمود فرن الله ونسينا أهدى والسلامية فنكي قيب الباحث سبنا كله أنا كل اللي أنا فنكي بهالكسوبة قاعدين ما شاء الله استاذ كسلامين أيا وقت قاعد ترتم باكري عاد فنحن كلا إلى هذا فيصل تشيو وحا يسقو فاني كده أحمد ولي ميوسيقي صوت هي مركا أحمد ولي أهان إن الميوسيقى صوت تدرت من إثيوبيا دقب يكون هذا كم من نغم من اسم الله ما بيسم الله هاي ما نيجرين لكن وح إلهي قريب نقطة هذا مركا إثيوبيا تجي وأنا كجورسدي ما شاء الله كوحدنا كميت بانقضي أفضل موسيقى تمنا والله وبلدك ويسكو كوح بانقضنا ما شاء الله markaas darteed baan tagay marka kooxda wadankii badan baa barta ka shaqeysay Axmed waa shaqeysay new police ka baan kooxdeeda bandiga baan nahay saaxiibadaada marka falkooda khatar sinimo kala kamid ahayd kooxda bariga aad bal yurba barkeen barta kaga nimaadno intaan Hargeysa isku la soo noqonay asaaskii kooxda xidigaha iyo maxaa dadweynaha heeska labaad ee barnaamijkeena aad ugu xigsan doontaa heesta labaad waxa la yiraahdaa heesta labaad waxa la yiraahdaa iyaga meedha caashaq iyaga meedha caashaq tii hore wada meedhadaas ka waan isla kadeedanay ma hado goorta aan saldhigayaan caga dhigayaan garan lahay laakiin waan raadinayaa wali jacaylkii oo nisaysana والله جعلك سيستان هيس كلنا هبين وتقول المقليو كحد حدا البابده داوود يا تاسنا وين نص عتاب الهيس كان لكن أين كسر دوان هيس كلا بعد برنامج كنا يعود كهيبة يروح محمد عبدي كينيو Igu mudan
naftaydii uga maarwaaye yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan sidii ruux madiidiyo marre lagu akhriyay buu mulkiyo naftaydii uga maarwaaye yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan mar inaad tiqiiniyo mar inaad taqaaniyo mar inaad tiqiiniyo mar inaad taqaaniyo inaad maalin aragtiyo inaad maalin aragtiyo inaad meel ku kulanteen maskaxdaba ka saaro mitid baan idhaahdaa muhashana madaaye muhashana madaaye maskaxdaba ka saaro mitid baan idhaahdaa muhashana madaaye muhashana madaaye sidii ruux madiidiyo marre lagu akhriyay buu mulkiyo naftaydii uga maarwaaye yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan sidii ruux madiidiyo marre lagu akhriyay buu mulkiyo naftaydii uga maarwaaye yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaiga maydha caashaqan yaa iga maydha caashaqa yurubay horta intana su'aalaha kala gelin su'aashan labaad ayayna soo weydiiyey waxa wadada soo kay gelis wada su'aalo yaa heeskan lahaa heestan waxaa iskala walaalo cumar jaamac caynab oo aad u salaamayo sidoo kale laxanka waxaa le axmed cawad isagana aad u salaamayo muusiguna dawaa ciltire farle ma sha Allah ustaadka aad baan salaameynaa horta yurubay hadii jacaylka la isqaatiyo caawaan qaaday صح يا إن القاطع سوما دونين بقى جيبي جاك بهرت ودايسة أديات إن يربي لكن مرة كقار ما حناقين وصلنا ده إن ما كسيدنا سمينا إلا مرة والبيا جمع لما تجرين ما كسكير علي ما يا ما هذا هرتوا في سؤال في عوان السير ولا لا إن هرت فورتين تنقاضا ملا ويترسنت هاي وين إذا يجمع رجيسنيس
والله كتيب برتي أمبا هل كم بلدونيا على الكايو مقرنسة بلن بالكايو waxay istawasc بلدونيا يربي dadweynaha daawanaya intooda badani way kugu barteen bahalka jacaylka in cid ka maydhiyo cid kaaga maaraqaadi cidin karkaadaba qof kasto macal fanaaniinta qaar marka la heesayso waxa dhadan yurub caawa ka jacaylka adduunka ka dhaxeeya ya waxyaabaha haystooyeen bal yurub dadka la hadalo imsa jeer baad guursatay hal laba saddex bal waxaan lagu wada dhajilay hebel way isjeceliin hadana way guursatay bal maxaa xaqiiqa والله هو سؤال في عن ما هذا بدنا وندوني سؤال شيء أنا دوينها كقنعيو أوي أرتو حياة يستن حريتي لشيء جيبنا أنا واحد أنا أقول لبني بنقرسي ولا لا أوي لو ضلنا والله ذكرنا يا وحكدم بيسمى نقرسنين أوي يجينا هذا علف بنك لك حيو شقي سكملهن فري بتبلد فري بانا حي مشارك كرسي بقى بدنايا عدي كفريسنا يسا مركا waxaa leeyahay wixii kale ee la saarsaari lahaa hebel baa qaba iyo kulba kan hees la qaadan la igu nabiyay waxaan leeyahay waxba naga ma dhaxayaan fanaaniinta marka actionadan ay sheegayaan iyo waxay laan jacaylka u dhigmo wax leedahay heesaha wata ina dareenka qofka bini'aadanka aad gudbisa oo actionka qofka duu fanaanadii iyo kulba actionka haduu xanaaq matali xanaaqi mataliya haduu jacayl matali dhulku saas ku taraarixinaya waa sidaas wax kale ma jiraan bal laga baahan yahay laakiin wax kale dareenay yurub maxamed cabdi carraftu waa imisa ciyalkaygu waa laba walaalo inaan yeelan mise laba inaan weey nuuciye nasri aad baan u salaamnaa barnaamijka aad baan uga salaamnaa nuuciye nasri yurub haddaan hore uga sii soconno waxaad tahay had iyo jeer dadka fanaaniintan imika soo baxay kuwooda ugu heesaha badan leh maxaa sababad isleedahay dadaal un kulley ma hadaw yadda waxaan odhan karaa abwaaniinta oo jecel dee abwaan walba waxaa laga yaabaa in ama jacayl ku dhacay ama la xumeeyey ama waqti xaadirka uu wax jacayl raadinaya laga yaabaa marka wixii sooranayaa inta qofkii oo inta ku wanaagsan u yeed yurba ku wanaagsan bay sameeyay cala calka sadarteed bay igu dhiibaan yurub maxamed inama badan baad la soo heestay oo heesa lamaana baad la soo qaatay kulli laakiin qofka bini aadamkiisa isagoo dadku wada wadaalada iyo kooxdaadii iyo qaar dalal kale kala joogba kaliyiin haddana waxa jira hubbi qofka bini aadamkii uu de kala jeclaystaayo marka la yiraahdo hebel baa hees leediin wada dhiibi caawa uu soo dhaweeyay waxba waxa ama in toonka isla gartaan inama isku dooqa in ka noqdaan yaad isjeceshahay jeer inaad maad ku faraxdaa ama aad naftaada raali geliye ha والله ولا الورتا إن سومالي دين وين كو قرادنا أو هدي وحلا جيا أتراد هيبل بان جعل هنا الله هسو أما إله هسو إن سكلا وقاتا لكن ده كمان سكودا مده هاي فنان كل جعلي هاي قف قدوم الواحد يعيش هاي قف ستون كذا كله هي سكرا أما مركز هي ساعة راح يسنكرتو مدنا هو مد كور كله هي سيا أو ندي قلي بكرين مدنا هو مد بطاقة أي تاجين توقول ما نكره سبت تشكو دي ومحمد أحمد بكال عرّا يا إسماعيل محمد برخد إسماعيل دنام ما شاء الله هذا فنان بنادو جعل لبدا باديات راح يسكره مركن هي سيان ويبي له سيان انت كلام حليده من نعبيه لكن هدي سو قسم نقطه وين كجوابه عاديات فنان هرو مانديق iyo khatrad daahir iyo sar ahmed iyo magool iyo waxba soo maray Soomaalidu kala daran hadii caawil war la mid noqo teebaad sleeday waqtiga ma aad u jeceshahay hablihii hore والله ياك له خضر الدهر عقل خضر الدهر عقل جعلك dad badan wax ku naanaysan maamada in khadrada cusub way aad bana sidoo jecelahay iyada laftirkeedana waan salaamayaa waa qofan aad iyo aad u jecel iyada laftirkeeda khadra dahir caqal yurub wadi kibri hargeysa ku soo noqday 2012 baa hadban maleynaya wax la aasaasay kooxda xidigaha geeska sax in kooxda xidigaha geesiga bilaasaskeedii barta ka bilaabantay bal aniga dadweynaha waxay xog maxad ka haysaa maadaama aad ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay kooxda والله ما هذا هو سؤال قالية إن كستونو سي وضع حسوسا من حديها جيسكا لبدي كوني لبي تبكي معي لبي تبكي مالها نقطان مرينية راح حديها على أساسي دي وحنا لقو بلابي كل أفر تقف أي سقبي وقت حاضرك ونكر هذا أحمد ولي هي أسماء iyo mursaliya khadra waan xasuustaa barnaamij qabteen iyaga oo magaca kooxda laakiin xidigaagiiska magaca lagu dhawaaqay lama bixin laakiin markii adigu wax yar bay ka dambeysay markii la bixiyay laakiin dad madoobay baa hayeen markaa heesay way marka barnaamijkii labaad ee kooxda xidigaha magaca xidigaha geesku baxay yaa ka mid ahaa kooxda waxaa ka mid ahaa aniga biikeninka la yiraahdo ciro adu imika oo macaan markii dambe ahaa magaca kooxda yalaha xasan saliman dhuxul absaalax xasan dhuxul gudoomiyihii imika gudoomiyihii cirka horeeyay
kana mid ah aasaasayaasha iyo nusdambeedka odayada kooxda xasan salamaan dhuxul aad iyo aad baan u salaameynaa yurub markay imka hawsha soo sii socoto maanta magac iyo maamuus iyo ixtiraam bulshada ku dhex leedahay sababtan caaw ku hor fadhina dadkuna ku daawanayaan ayay ka mid tahay caanimadku laakiin adduunku wax kasta dhibi dheef bay leeyihiin caan baad noqotay maxaa caanku muxuu dhibaato kugu keenay والله هذا دبتي سنة وتدبتي سنة وتع عن نمضو إن واحد بوساس عن نمضو ولا ما أورن كره ده دب يعني سواش دب دي بيديسي لكن ده إنك استنشق على شعب كذا إن مر والبا عن وحيدون ين إلى هيك السكوت يوجع مجا عن نص ميان إن يجي في اللي قدرنا مجا أكو هلاي أنشق على هاي إن قنعيو وحيدون ين أنك قنعيو هذا ندى وقتي ذا قاربان كوب السامحين بس ما هذا المدار دولي سوكله ويدي هذا كاتيجيسو هذا أروس كتوم يسوق أكله هذا جيو دالن أما ديدتن أكله أما هستي للدنيا إن أتكشوا بالغوري أنا قن عصورنا لك كاتب تاي وده تتاوي من أورن كرا حرية دي بالكلام مقندس يدق في عادي ومدو مسعود مسعود كريس هاي كل ما كبد مسبب باورت تدوينا سيدا بسكو كلنا تراده سبحان الله تمام ما كان شعب كهاون مالني أي كبد مسي ما هذا لكن إن الشرائر بيسوم إيقاع الفنانين تقار ويكون حمران إن سوق مالها شعب كتاجين وكله أنا ومع هذه استينا إن الشرائر حلو مركات تدوينا هذا حكي اللي سوينا السيد يروح عن كل حكي هوايها سما سجلت كيس أنا كمل كورة سوي لك اللوات قنعين كتاع قفكي الصومال بتقنعين كتاع يروح هسا كان شعلك ودايم إن كستو ده قفك بنانك وحوى في كيس كشيء أنا كلا شعليسن مركا ما دكتور كسر لحظة أما دقيقة ama adigoo meel joogaba la dhageysto heesaha silada heesaha adigu sida dadweynuhu u dareemaan ay u dareentay marmar heesaha laftigooda shacabka noqota heesada waan jirtaa heesariyadeeda la waxa la cabdi xakiin cabdullaahi jibriil ilaahay naxariisna ka waraabiyo qiiq ilaahay naxariisna ka waraabiyo sagalaha muusigana waxa la iltirafuro heeskaas aad bay jecel wahay aad iyo aad waa qisoo waqti xaadirka aniga ay haysatay wadaadaysa markaas heesooyinkaygii soo taxnaawndeen heesaha marka la eego heeskan waan oo kale imka arab ku dhufatay hawlahaagay ku shaqo leedahay mid iyo laba kale si ay dadweynuhu bal uga dhex calaamasadano caawa maxaa loo baaro aad iyo aad heesta la naxli adoo niyada iga jaray jacayl kala nintaaqiyo naxli iyo xumaan soo dooqana askari janaawi moora heeskaasna waa adiga aad xasan salamaan dhuxlaan ka qasada uga sheekeeyay haye markaas ii sameeyay ereyada xasan salamaan wuxuu yeelay xanka heeska saddexaad waxa weeyaan heesada dhaweyd aan duubay heesaygii ugu dhaxeeyay jirtay waqtiga yaa noo garnaqa leedahay waqtiga yaa noo garnaqa iyo waqtiga saynaba tacalladina ka soo gudbay ay adiga waqtiga saysan ay waqtiga sayna way daawadayaal habeen iyo laba iyo saddexna kagama dhamaan karno haddii isna gidda caawa yurub faqo oo ka soo qaada su'aalo barnaamijka bartankeenu kaga jirnaa waxaan soo gudbi doonaa heeska saddexaad iyo habeenkan caawa barnaamijka maxaad inoo haysaa yurub markaan dhanka heesaan ku noqon habeenka caawa maxaa badno hees saddexaad waxa la yiraahdaa waxaad golo ka faantaa waxaad golo ka faantaa ama ceebka gubataa ama ceebka gubataa adigoo garowsada gafinaad samayso gacalka ku qaban karo hooy ku qaban karo waxaad gole ka faantaa ama ceebka gubataa waxaad gole ka faantaa ama ceebka gubataa adigoo garowsada gafinaad samayso gacalka ku qaban karo hooy ku qaban karo godobtana ningalay
waxaad guushahanata hanku meel ku geeya ood heer ku gaadha alla ku gaadha hilkasnimo adoo guda waxaad gaaru leedahay garadkaagu kugu simo garadkaagu kugu simo waxaad guushahanata hanku meel ku geeya ood heer ku gaadha alla ku gaadha hilkasnimo adoo guda waxaad gaaru leedahay garadkaagu kugu simo garadkaagu kugu simo ama gaasa bixisaa waxaad tala gorfaysaa ama gaasa bixisaa aday gogoli ku taal axdigana aan gees marin haddaad gaarasha leedahay ama gaasa bixisaa waxaad tala gorfaysaa ama gaasa bixisaa aday gogoli ku taal axdigana aan gees marin haddaad gaarasha leedahay waxaad guushahanata hanku meel ku geeya ood heer ku gaadha alla ku gaadha hilkasnimo adoo guda waxaad gaaru leedahay garadkaagu kugu simo garadkaagu kugu simo waxaad guushahanata hanku meel ku geeya ood heer ku gaadha alla ku gaadha hilkasnimo adoo guda waxaad gaaru leedahay garadkaagu kugu simo garadkaagu kugu simo كرون هوتيل هرقيسة يا هورار ميديا ملكيلها عبد الإسماعيل عبدي بين يربيق ومحدنا برنامج كينو فديين آديات يربيق وقتي هذا فراقة الله هاي نبوا حبوت شعلي قربك بدأ داوضة قرب فيلم هذا داوضة حد قاعدة وقتي هذا فراقة waxaan malaynayaa in dad noorta way la mid dadka qaarna waxa laga yaabaa inay dadaan waxay ku fishaayeen walaal anigu jacayl meelo baaska waxa jacaylkan jecelay hindigan daawada مع الوقت جاي فرقة جعلك وصعني عادية وقتي فرقة هلا تركيز جعل بس لأنك جعلك كلنت كبد وتكشرته عادية إن وي
يربين كلردة ويفر بدين تدكو هذه شر كلردة كلر كده وجعش طلب بدن كلر كان أنا أو باكرون كاف كان الحيوان بينكي جا بلوجة كده بلوجة تمدين الدور كيبا بيك ودبعان كاجا بيستك كوا دورت كلر بدن بنحدايو إن ما هذا الحدث لكن دو خال شيء قد عاون حيرته بين دم حيرانيسي لكن أنا قلت شوس كي جاهن بلوجة آديات وتشاش تاجر بلوج بات dadka laftigeeda yar bay hateen caaw kaftanka dhanka badano cuntada laftigeeda dad caaw koorlan ku marti qaadaya maxaad orle toloniki ma hada hawsha ku si diyaariyo anigu dhinaca China ka ayaan malaynayaa xagga bariiskan aad si fiican hilibkiyo kalluunkiyo waxa iga leexiyay ma wanaagsan waxay u galeynaa yarbay heeska afraad ee barnaamijkeena maxaad inoo haysaa in dadku uga dhigleen heeska afraad ee barnaamijka heeska afraad walaal waxa la dhadaa guddigan wixii saaray xaqiiq kama gaarin waa jacaylka laftigiisii kama baxaynay nagu wada kama baxayo guddigii loo xil saaray xaqiiqdii kama gaarin inkasta oo aan haddana laftigeeda rajo ku jiro isla yahay malaha way ka gaareen badii oo rajo ku jirto telefoonada sugayna rajada alla laga ma qoostay waxa la eriyada walaalo cali mooge oo Mareykan joogan aad u salaamayo laxan kuwa daawad xan faristaadkii weynaa de muusiguna waa ciid tara furan leh anoo dhinac boog ma baxay Soma way sidoo kale waxaan salaaminaa in Cabdirasaaq Xamed Caydiid in Cabdi Ismaaciil Saciid Bisso iyo Cabdiraxmaan Cismaan Cambuur Xaaji iyagu dadkii barnaamijka laftigiisa hawl fududeeyay Ismaaciil Maxamed Barkado kale waan salaamayaa dad salaamuhu ii dambeynayaan salaamuhu inoo dambeeyaan laakiin nimankaas barta iga soo qaawso shayga dhacday way heeska afraad ee barnaamijka iyo guddida ay daawadayl ku soo dhawaanaa daawasho wanaagsan xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xujo weeye xakaara naftaada ilayn xujo weeye xakaara naftaada jacaylka xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xujo weeye xakaara naftaada ilayn xujo weeye xakaara naftaada sidii xays rooba intuu igu ximay xanuunka jirkayga sidii xays rooba intuu igu ximay xanuunka jirkayga kayga alla kayga sowxadkii ima dhaafin xays rooba intuu igu ximay xanuunka jirkayga sidii xays rooba intuu igu ximay xanuunka jirkayga kayga alla kayga sowxadkii ima dhaafin maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye way hooy maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye ummaddu igu reebay la reebay ayaan la xaraamaya anigu maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye ummaddu igu reebay la reebay ayaan la xaraamaya anigu xusuusta jacaylka intaa igu xeeran ilayn xana weeye
xuruufta ileeya ilayn xanaweeye xuruufta ileeya xusuusta jacaylka intaa igu xeeran ilayn xanaweeye xuruufta ileey ilayn xanaweeye xuruufta ileeya haddaan xal u raadshay xaqiiqa ma gaadhin guddigan u xil saaray haddaan xal u raadshay xaqiiqa ma gaadhin guddigan u xil saaray u xil saaray xeerkiisa ma qaadin haddaan xal u raadshay xaqiiqa ma gaadhin guddigan u xil saaray haddaan xal u raadshay xaqiiqa ma gaadhin guddigan u xil saaray u xil saaray xeerkiisa ma qaadin maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye hoy hooy maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye ummaddu igu reebay la reebay ayaan la xaraamaya anigu maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye ummaddu igu reebay la reebay ayaan la xaraamaya anigu waayahay daawadayaal haddaynu intaa kaga soo gudubno heestii guddida jacaylka loo saaray yurube markii dawaanigii isla soo garanay inaad 19 jir fanka ku bilowday taas waxay caddaynaysaa in shaqadaadii koobaatay ilaa imika shaqadii koobaad ee noloshaada qabateed ku jirta misleeda fankaad ka baxdo shaqo kale aad bilowday wallaahi haa ima qorshaysnay inaan ku sii jiro laakiin hubigayga kolley fan ahaanad weli hadda ma dhammaan baan filaya laakiin markuu dhammaaday insha allah ilaahna waxaan ka baryayaa in ilaahay gaarsiiyo waan ka farxanayaa insha allah way shaqadan waad ku guuleysatay shaqadii koobaad aad qabatay waxaa cad inaad meel fiican ka gaadhay yaad ugu mahadnaqaysaa ama aad isleedahay uu ka dambeeyey guushanaad gaadhay kulle way badan yihiin walaalo feerasti cabdiriis ismaaciil cabdi oo hadda hawraan media waa sawir qaade waa editor waa farsamo yaqaan haye ilaa heeskii koobaad baad soo xasuunaysaa dadkii koobaad isla soo bilaabay ilaa tan caawa u fadhino weyn weeye wallahi gacan biiga geystay istaadka waa salaameynaa aan isagana aad u salaamay Suudaan jooga Cabdiqaadir Coday adigu saxaab aad u fara badan waan aad u wada salaamayo iyay ku gacan qabtaan leh Xasan Baan Roomo oo kale ninka magaca geeyay bixiyay xasan عليك يا نور حسن ادوان سلامو magaca geeyaysa ku bixiyay aad iyo aad Xasan Baan Roomo ay bixiyay aad baan isagana u salaamay walaalkay marka kulli asxaab badan baa iga soo gacan geysatay waxa ku dambeeyaan Cabdinaasir Macalin Caydid baa ku jira filimka dhamaadkiisii Axmed Ibrahim Maxamed Furle iyo Xasan Salibaan Dhuxul ayaa kamid ah iyaguna dadkii ku soo qacan qabtay guushaada bartana ka dambeeyay hadii hablo cusub ay yurub kula tashadaan ay ku rahdaan in fankan doonayaan soo galno maxaad kula talin lahayd horta kulli fanku walaal shaqooyin fara badan oo la qabtaa way badan tahay waxyaabo fara badan baad fanka ka baranaysaa ma hado anigu intaan fanaanada ahayn qabiil maan aqoonin hada qabiilka waan aqaanaa waxa laga yaabaa fanka laga dhex baranaya walaal waa mixnadaha fanka laga barto ku jira inkastoo alxamdulillah rabbil caalamiin heer fiican anu baan ka taaganahay waliba dhibaatooyin aad u fara badan aanan u marin intii dadku u soo marayaan aniga ilaahay dad wanaagsan ila kulmiyay si fiican ma garanaysaa wafankayga halka ila soo gaaray waxaan oran lahaa shaqooyin fara badan oo la qabtaa way badan tahay iska daa fanka kulama talisa diidaan bay noqotay iyagu hubigooda aniga dad badan bay igu fanka iska daa ilaa hubigayaan ka gun gaaray maan waad ka diiday ha waxaan leeyahay waxyaabo fara badan buu fanku leeyahay adkaysi baa loo baahan yahay ma leeyahay meelo la maro oo adiga markii aad fanka soo galiso kala ku seegay
oo qofka fanka ku cusub oran leedo wadadana ka leexo wadadana mar taasa guusha kugu horseedaysa ama ku dhow horta may ma hado anigu way dariiqi fiicnaa buu ilaahay ila kulmiyay oo may wax xun maan arkin oo carqalad igu maan arag waydan carqalad arki lahaa oo kala talin lahaa marka wax carqalad igu noqday aniga ilaahay ma tusin ka wadada dhibka hadaan arag wadada wanaag uma leedahay soo maraa wanaag uma leeyahay ilaahay dinkana saahaydin ka dhigo baan leeyahay laakiin mikrofon bay dadka ku waasheen waa la heesaa bay barteen fanku wuu qayb badan yahay walaalo qayb far badan oo fanka laga soo galaa way jirtaa jilaaba jirtaa abwaani ma jirta musician ba jirta musiga la tirkiisu organ oo kaliya tamaaha marka waxaan leeyahay heesaaga kaliya iska diisaan fanku far badan yahay way yurbe taasoo kale markoo kale hadii dadkaas loo cudur daaro awal markii hore fanaaniintu ay soo bandhigi jireen riwaayadaha taxanaha ee jilaagu ku jiray muusiga sadka la tumi jiray dadku shaqooyinka kala duwan qaban jireen macallin xamiisteesh steedada hoosada heesta riwaayada ku jira midba afar midba laba loo dhiibi jiray maanta dadka tiyaatar ma haystaan marka hadii xukuumadda noqoto ama dadka hadii jeer fanka taageeray ilaahay maalka u dhiibay noqoto maxaa chance uga faa'iideysan iyaga oran lahayd waxaan uga faa'iideysan lahaa walaalo fursadan in badan waan sugayay inay soo marto horta in tiyaatarka imka uu socdaa sidii maqalkan ku maqlayay waxaan u lahaa in qalabkii dhammayska tirnaay la tumi jiray fanaaniintii isku duubnayd riwaayadaha jirta way fanku heeso oo kaliya tamaaha imka waxa la odhanayaa show baa la dhigayaa شو هو هيسا كلياتا dadkii waa weynaa heese kaliya ma garanayaan kalaab uma noqotay meesha doonayaan waaday doonayaan in wixii ma garanaysa dadkii de heestii waxay macnaha ku socotay dadkii laga dhaadhiciyo marka waxaan oran lahaa in fanaaniintii waxay maanta ka cadlan yihiin waxa weeyaan waa tiyaatar meel ay wax ku soo bandhigaan waa hoteelada waa lacag meel walba farqaada iyo qalab dhameystiran in fanaaniinta loo iibiyo haday tahay dawladda iyo haday tahay ganacsatada Soomaaliland maanta de dalka burbur baa ku dhacay dib baa looga soo kowday xukuumadda Soomaaliland baa soo kobcday way timid Hargeysa hoygii fanka yaad isleedahay dhaliisha ayaa leh ma xukuumad ahaan shacab ahaan fanaaniin ahaan xageebad isleedahay maanta hadii ay meeshaasi kacdo fanku horumar buu gaari lahaa fanaaniinta la anagu leeyahay waayo gacmooda jirba wax ku gooyaan walaalo hadii ay fanaaniintu isku duuban yihiin ama fikirkooda ay madaynayaan waxaan leeyahay qalabna lama waayin tiyaatarna lama waayin dawladoodana iyaga afkooda ula tagi lahaa wax ka furfuran lahaa marka fanaaniintii baa gaabisaan leeyahay waa in walba wixii isleeyihiin hadda adigu waxaageed helaysa cid kale maxaa ka kala marka fanaaniinta waxaan la isku duubnaada galiya dibadda Europe fanaaniin badan fanaaniintu hadii jeer markay xanuustaan ama hadii jeer ay talax gabaan fanaaniin badan oo cadiban baa la arkayo dadku sida hore ay ugu heelanaayeen ayna ahayn talaftigeeda maxaad in dadweynaha hadii jeer fanaaniinta marka hore taageera marka dambe ay codkoodii macaana daa iyo gabow iyo xanuubo yimaada maxaad in oran lahayd adigu talahaan waa laftigeeda fanaaniintiina nahay baan oran lahaa marka qof fanaanku caafimaad qabo ama uu da'yar yahay codkiisa oo ku raaxaysataan oo dhageysataan marka xanuunsado inaad dhibtii la qadheefto aad la qaybsateen oo reer waa codkiisii uu ku raaxaynayay inaad dhibtiina la qaybsataan oo marka xanuunsado oo kala aad wax tartaan ayaan kula tan lahaa taageerayaasha ama dhageystayaasha meel walba jooga aad baad ugu mahadsantahay waqtiga qaaliga aad habeenka caawa Europe si khaasatan mahadaan aad baan kugu mahadnaqayaa qofba meel buu adduunka khabiirkay waxaan isla garanay nagii dadweynaha jacaylka khabiirkiisa tahay jacaylka laftigiisa Europe iska daa rag oo habluhu jacaylku hayo tala maxaad si leedahay tala arsiin kara ma jirta caawa oo qofku mar haduu ay booga ku taalo inaan dawr raadsan mooyaan inaan dawr iska daa laga meel laakiin waxaan oran karaa ilaahay haydiin soo dhaweeyay cid aad jeceshihiin niyadiina ku jirta rag iyo dumar habl iskaga daayo ma garanaysid ma garanayo waan iska diilaha waayahay daawadeel waxay u gudbi doonaa heeska shanaad ee barnaamijkeena oo dabcan noqon doona gunta iyo gabagabada barnaamijkeena ma heeskii ugu dambeysay Yurba heeskaasi bal naga wariyada ma hado intaynan heesta gelin horta DJR aad baan salaamayaa DJR ninka habeenka caawa codkayna soo gaarsiinaya aad baan salaameynaa waxa kale salaamayaa saaxiibada ismaan Holland magaalada Hargeysa iyo gula sugan aad baan iyadana salaamayaa hooyada iyo ciyalkayga aad u jecelahay aad baan salaamayaa ma hado adiga iyo oo hor fadhiya caawa iyo ciyalkan idada uu ahaa iyo dumaashidii oo student ku sugan aad baan iyagana salaamayaa sidoo kale anaguna salaamayaa qayb taqaana intaan ilaawina waxaan idin leeyahay
idilman ilaa wada geerida haydin ilowdo الله يعيسك أنا قلنا ورنتد سلاس وقلة قال يا أدي أدم هالك دوني كشيء مقعيد وده ولكن أحمد على برنا أدم سلامية الله يسعد أنا قلنا أحمد وان سلامنا هذي يربي تحتين سوق عادني سنادك هو السلامة تسدا الله دل مرة ما ينكريه مركز سدا اسمه أنا قلنا سوق بينا هو يو أبدك يو هو يكون سلامنا ولا أول الفيديو أدم سلامنا هس كان برامج كان كل سوق بقبينينه محلينا كحل الباب ده كحل الباب ده حاسد أو نبه marka ma jacaylkii baa laga xiranaya mise xasiidinta laga xiranaya may waa labadii qof ay isjecel oo ishelay ka dhamaadkiisa ashqiyaasa kayahay waa xasan ka helay waxaan leeyahay ka xirxidha albaabada xabibide waa magaranaysa wixii xaasida oo maqlin baan leeyahay ka xirxidha albaabada ya sameeyay erayada waxaa le ugaaska ugaas Axmed Cali Mahadimi hay laxanka ugaaska baan salaameynaa laxanka waxaa la Muuse Gaas walaalkay fanaan aad daayar oo jijiga ku sugan oo aad salaamayo muusigana dawaa iltira furno Axmed Wali waayahay daawadayaal ku soo dhawaada heeskaasi ka xidhxidho ee uu noo sameeyay abwaanka ugaas Axmed Cali Mahdi iyo ustaadada kala qayb qaatay dabcan waxay noqon doontaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka tan iyo kulanti dambe Yurub hortiineedu ku iman doono waxaan leenahay nooli kulanti jirko idil xadantada curuqdiyo wuxuu xira ku leeyahay xabadka iyo beerko xawlan maridkiyo jiraha jirko idil haragada jacaylkiyo xayndaabka caashaqa in xumaan ka talisiyo xaasid lagama waaye ka xijaaban keenuye ka xidhxidho albaabada haragada jacaylkiyo xayndaabka caashaqa in xumaan ka talisiyo xaasid lagama waaye ka xijaaban keenuye ka xidhxidho albaabada jira xaqiiqdiyo xogta aan abaarin waxaan helay xambadano nacab soo xurxurayo inkastoonan xalay
xalay xiriirkii dhexdeeniyo xubbigeena necebo xagal daacinaye xadhigaanu gooye adna xirsiga u adkeeye xiriirkii dhexdeeniyo xubbigeena necebo xagal daacinaye xadhigaanu gooye adna xirsiga u adkeeye xaragada jacaylkiyo xayndabka caashaqa in xumaan ka talisiyo in xumaan ka talisiyo xaasid lagama waaye ka xijaaban keenuye ka xijaaban keenuye ka xidhxidho albaabada xaragada jacaylkiyo xayndabka caashaqa in xumaan ka talisiyo in xumaan ka talisiyo xaasid lagama waaye ka xijaaban keenuye ka xijaaban keenuye ka xidhxidho albaabada